iyadoo sanadihii ugu dambeeyay ay soo badanayeen kutubta quraanka kariimka ay ku dayacan goobaha lagu akhriyo quraanka kariimka sida masaajida dugsiyada quraanka kariimka loogu barto iyo guryaha ayaa waxaa maamulka markaska Shaadibiya magaalada Laascaanood u bilaabay in la dayactiro kutubta quraanka isla markaana bulshada Soomaaliyeed laga wacyigeliyo inaan la dayacin kitaabta. Sheekh Aadan Cabdullaahi oo ku magac dheer Shaadibiya ayaa xog ururin ku sameeyay goobaha ay ku dayacan yihiin kitaabta quraanka kariimka iyo talooyin ku saabsan sidii loo dayactiri lahaa kitaabta Alle iyo waliba sidoo kale waxa uu bulshada ugu baaqay in shacabka Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan qaaraanka lagu dayactiri lahaa kitaabka Alle. muhiim ah ayuu baaqa iyo fariintaasi ay daaran tahay arintaas walaaleel waxa weeye waa daryeelka ama dayactirka mushafka quraanka kariimka kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa runtii waanu garanaa manzilada iyo maqaamka iyo booska Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu geeyay iyo waxa Allah subhanahu wa ta'ala ugu talagalay in la daryeero oo la dayactiro oo la ilaaliyo oo meel xafidan la dhigo wanaagsan waa shay diiniya waa shayga aynu ku barakoobayno markaynu dayactirno oo ilaalino kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu ognahay in mushafku aad inoogu dhex dayacan yahay oo runtii meelo far badan uu yaalo isagoo googo'an isagoo dayacan markaynu eegno madaaristeena quraanka masaajidada xaafadaha ama guryaheena runtii kitaabku aad iyo aad buu ugu dayacan yahay marka fariinta aynu diranaa waxa weeye kow in horta mushafka ama quraanka kariimka aynu isu xilqaamno oo aynu isu taagno sidii aynu u dayactiri lahayn u ilaalin lahayn guryaha marka aynu joogno aynu u habayn lahayn oo kitaabka meel fiican u dhigi lahayn wixii kutub googo'an ama dayacan sidii aynu magaalada uga ururin lahayn oo wixii dayactirmi karana aynu u dayactiri lahayn oo u geyn lahayn meel lagu dayactiro wixii aan dayactirmi karayn oo aad u googo'ayna aynu isaga dhex qaadi lahayn oo u gubi lahayn oo u dayactiri lahayn runtii waxyaalaha laga murugoodo ama laga naxo oo aad iyo aad ka murugada badan waxa weeye in hadda ay la sheegay dadka qashinka gura ama meelaha qashinka lagu guro isagoo jawaana awal waxaynu ka caban jirnay isagoo googo'an oo safxa bogbog iyo waxaas wala lagu tuurayo laakiin isagoo inta la ururiyay jawaana lagu ururiyay ayaa hadda waxa la dhigayaa meelihii qashinka lagu daadinayay runtii arintaas waa arinta nadiirisay ama runtii aad iyo aadka dareenka iyaga ama shucuurka iyagu u kacay aan jeclaysan inaan walaalaha muslimiinta meel kasto ay joogaan aan wadaagno arintan si aynu inagoo jamaaca inagoo kulli ah oo wada jirna aynu kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu qumno oo isugu taagno haddaba maxaa la inooga baahan yahay inaynu sameeyno waxaynu rabnaa inaynu olole guud oo magaalada aqaadno oo mushafka lagu dayactirayo ama lagu ururinayo kow horta xaafad kastaaba inay insha Allah ta'ala is abaabusho oo ay samayso meel ay kitaabka ku ururiso dadka guryaha haysta insha Allah ta'ala cidii la baxaysa ama sadaqadaysanaysa ay qol u diyaariso lagu ururiyo xaafad kasta marka qolka lagu ururiyo waxaan rabnaa inaynu cid u xil saarno kala hagaajisa oo wixii dayactirmi karaysan hadhow ka saarta wixii kalena aynu markaas gubno magaalooyin fara badan baa arinta laga sameeyay ku najaxay waxa kamid ah magaalada Garowe waa laga sameeyay magaalada Hargeysa waa laga sameeyay Muqdisho waa laga sameeyay meelihii laga sameeyo dhan si fiican baa runtii dayactir fiican ama wala fiican buu noqday barakaysan ma sha Allah inagu insha Allah ta'ala wax khayrka waa lagu deedaa waa ka dayanana maanta waanu tagnay magaaladan soo marnay meelaha quraan ku dayacan yahay waxaan soo eegnay dadka dayactira waxa ay ku dayactiraan masaajidada goobaha u yaalo marka halka kitaab waxa lagu dayactiraa $2 sida ay noo sheegeen walaaluhu marka $100 hadaad bixiso $50 hadaad bixiso hadaad 5 kitaab dayactirto hadaad hal kitaab dayactirto waxa weeye waa wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa ku yaala marka aynu ka wada qayb qaadano dhamaanteen isuna wada xilqaano Allah idin barakeeyo aad iyo aad baan khayr badan idinku rajeynaya waxaan u dayactirnaa kitaabkii hadii sida uu yahay oo uu wato galkiisa iyo hadii maanaha uusan wadan galka uu maanaha ka maqan yahay laba sifo loo dayactiraa kan galkiisa wato galkiisa lagu hagaajinaya kan galkiisa wadan kartoonka waa gal loogu sameeynaya loo hagaajinaya marka qiimahan waa $2 galka markii loo sameey bacdaas la saaraya bacdaas lagu xidhay casaan iyo cagaar iyo buluug bay leedahay qiimahan waa $2 baa lagu sameeyaa kitaabkii lagu dayactiraa
marka insha Allah hawshooda waa sida marka waxaa la rabaa dadka muslimiinta kitaabada dayacan inay daryeelaan oo aad iyo aad xil iskaga saaraan waayo